السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سودوا saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudane ku xiran janaalka walaalaha family waa mar kale muuqaal hor loo idinkaga diyaarinay musalsalka walaalaha maxaa ka cusub sidoo kale maxaa ku soo kordhay muuqaalkii ugu dambeeyay degdeg badan ayaa nagu jiray ay ahayd magacyada qaar ayaan isku qalday ay ahayd marka qofka email gaariga jiirsiin rabay waxa weeye Sarbi macnaha Amir ma aha aniga Amir ayaan lahaa Amir ma aha macnaha sababtoo ah Amir yani hadda ka hor seasontuu ka soo qayb galay wada garanaysiin sidoo kale maalmahan wuu iga soo baxay dhanka social media marka saas ayaa magaciisa aan u soo qaatay marka laakiin qofka gaariga jiirsiin rabay email waa Sarbi sidoo kale yani inaan iloob xalqadii u dambeysay iyo magacyada dadka cusub waxa ay ugu kaliftay musalsala badan iyo daawaday sida Maqal Toosliyaka yani musalsaladaas oo dhammaadaan daawaday iyo sidoo kale saandaantaha guzalmiyaha oo dhamaaday oo atwara Amir la dhahay sadarteeda ana magacyada la qaldayahay laakiin runta waxay tahay Sarbi in uu gaariga tiirsiin rabay gabadha lagu magacaabo email waa tahay eeg aniga lacala ayaan ka hadlayaa kama hadlayay yani ma hubi macluumaad sidoo kale maba ahanba sorry laakiin lacala ayaan ka hadlayaa waa hadal hayn oo kaliya lacala hadii ninkan Sarbi lagu magacaabo uu gaariga tiirsiyay gabadha email ah ma laga yaabaa sirtaasi ama arrinkaasi aadka u muhiimka ah in la qariyo bal adig fikirkaaga la wadaag aniga ahaantayda ilama ahan in la qarin doono arrinkaas sababtoo arrimo kale oo badan baa la soo qariyay sida dhimashada qadiir adiga yani kulli hadaan hadda dhahno mid hadaan u tirin hadaan dhahno waa wali kale yani waqti badan bay qaadanaysaa siraha la qariyo kulli waan isku ognahay yani aad ayaan u ognahay siraha waqti xaadirka la qarinayo qayb dadka jilaya taxanahan ay og yihiin laakiinse dadkii dhibaatooyinka loo geystay aysan ogeyn marka email hadii ninkaas lagu magacaabo Sarbi uu gaariga jiirsiye gabadha email ah ani ahaantayda ilmahan sirtan in la qarin doono sidoo kale waxa dhici karta gabadha in ay badbaaday sababtoo ah gaariga markii uu Sarbi waday biriga ayuu qabtay ayaa sidoo kale asagoo leh iska taxadir asagoo leh ayuu biriga qabtay ayaa ahayd sidoo kale waxa jirta arrin kale oo muhiim ah gooska dhexdiisa aan ku aragnay hadal waqtigaas la fahmi waayay sidoo kale Muuse wuxuu dhahay ayaa ahayd macnaha ereygan wuxuu u dhahay sameyn oo kale laakiin ereygan wuxuu runta waxay tahay inuu ereygan yahay sun camal ereygan ugu horeyntii waxa dhahaya Sarbi wuxuuna la hadlayaa Yasmin wuxuuna ku dhahayaa Asiye kulli qofku u jeedo waa Asiyada ciyaarta waxa la ciyaariyay Asiya ayaa la ciyaaraysa ay ahayd Sarbi ayaa walaashiisa Yasmin wuxuu ku dhahayaa gabadhan ma waxaad u sumeyn rabtaa sun ayaan dhahay la soco u sumeyn rabtaa ciyaarta darteeda ama ciyaarta saxda marka waxaa la sheegay xalqada soo socota Asiye in la isku day doono in dhibaato loo geysto si ay kaga badbaadi doonto iyo in dhibaatadaas ku dhici doonto intaba lama sheegin lamana hubo xalqada baa laga warsugi intaasba labadaasba su'aalood badas weydiinaysid Asiye ma laga yaabaa inay arrinkaas dartii dhibaato soo gaadho iyo sidoo kale ma laga yaabaa inay ka badbaado xalqada ma la ogaan karaa markii ay soo baxdo xalqadu sidoo kale Orhan iyo Gunuul wixii xalqada u dambeysay ku dhacay runtii waan u jeednay iyo sidoo kale Singul qoftii lagu magacaabayay Orhan iyo Gunuul waa heshiiyeen jacaylkoodii wuu soo laabtay laakiinse Singul ayaa runtii arrinkaas aad uga naxday kana moraal jabtay waxaana la wada filayaa in odaygan lagu magacaabo Orhan in uusan Singul ku soo laabanaynin haduu Singul ku soo laabtay waxa dhicisoobaya ama daciifaya doorkii Gunuul ay taxanaha ku lahayd sidoo kale gabadheeda Afraa oo hore idin ku sheegnay xalqadii u dambeysay inay yani fakfakteed iyo waxay sameyn doontaa ay badan tahay sidoo kale xalqada soo socotana waxyaalo kale ay sameyn doontaa eedii iyo Uljaan waxa la isku day doonaa inay isku soo laabtaan maadaama taageer iska fiican ay heleen Uljaan qof kale markaan uusan u harin asagana doorkiisa runtii waa in xoog la saaraa oo afraadaas bal lagu mashquuliyo kulli Umar waan arkaynaa bal qaabkay wada macaamil doonaan sirto Uljaan iyo Dooruuk iyo Asiya ay wada qariyaan waan aragnaa bal qaabkay wada macaamil doonaan waan aragnaa waa tahay isla muuqaalkii u dambeeyay qalad kale ay ugu jira ay ahayd oo ah taxanaha kaalinta saddexaad ku jirta dhanka daawashada horta liiska daawashadu waa kan bal si fiican u eega kaalinta koobaad waxa ku jira taxaniin lagu magacaabayay Gunuul Da'i xalqadiisa sanaad seasonkiisa saddexaad asaga iyo musalsalka walaalaha waa isku mid seasonkoodii saddexaad isla xalqadoodii sanaad marka wuxuu keenay dhanka daawashada totalka ugu muhiimkasan 9.00 taas oo macnaheedu tahay isla xalqadii tan ka horeysay intuu keenay ayuu keenay kor u kacna kuma iman hoos u dhacna kuma iman laakiinse kaalinta koobaad ayuu ku jiraa weligiina taxanahan kaalinta koobaad wuu ku jiri jiray waa la iska yaqaanayo maalmo kooban ayuu kaalinta koobaad ka bixi jiray waxaana maalmahaasi kooban kaalinta koobaad geli jiray walaalaha ama Cusmaan يعني
taxane kale oo kaalinta kuwaa soo geli jiray waxaa jira hawlgalka soddoonka oo isaguna xaritoo lasoo laabtoo la yaabay dee haddaba kaalinta labaadna waxaa ku jira taxna lagu magacaabo baan buujihane simaas oo asaguna tootaalkiisu yahay 8.35 waxaa laga daawadaa telefishinka ATV maalinta salaasada ayaa la daawadaa ama gabagabada salaasada subaxda u horeysa arbacada ama saacadaha u horeysa arbacadana dhanka YouTube iyo meel walba aad ka helaysaa kaalinta saddexaadna waxaa ku jira taxaniyan muuqaalka u dambeeyay soo qaladnay ee lagu magacaabay Yaali Chapkini oo telefishinka Star TV laga daawado aniga runtii Focus TV on aad ugu yara ka naxsanaa baan taxanaan u maleeyay baan anigu og xitaa taxanaan markuu soo bixin ka hor 3 toddobaad ka hor mise bil ka hor ani waan sugayay ay ahayd oo jilaacaan oo shaatay ulusoo lagu magacaabaan moodayo inuu actor-ka yahay يعني فوكس تي في بان كورادو دعايبا muuqaal ku dambeeyay degdegaya marka runta waxay tahay in asal ahaan taxanahani telefishinka Star TV laga daawado maalinta Jimcaha subaxda Axadana taxani oo full oo dhameystiran ayaa daawan kara laakiin si kale daawashada maalinta Jimcaha ku xiran tahay galabta Jimcaha dhamaadkeeda habeenkii Sabtida soo galayso ma aragtay yaa taxanahan Yaali Chapkini laga daawada dhankaas iyo telefishinka Star TV taxanahana tootaalkiisa xalqada labaad waxay keentay 7.15 taas oo kaliftay in uu kaalinta saddexaad yimaado korkac ahaan wuxuu sameeyay korkacan hore loo arag oo ku dhow intii xalqadii koobaad daawatay in la eg ayuu korkac sameeyay ay ka dhigan tahayba kaalinta afraad waxaa ku jira taxanaheeni maan dhihi karaa managa iskala talo musalsalka walaalaha de marka kaalinta afraad ayuu ku jira musalsalka walaalaha weligii kaalinta lixaad soo ku jiro horta maba arag ani ahaanteeda yani adiga laga yaabaa in aragtay laakiin aanu intaan rating ama daawasho eegayo weligii taxanaha musalsalka walaalaha kaalinta lixaad ku jira maba aragba 1 ilaa 3 4 san maba dhaafaba tootaalkiis wuxuu keenay 6.49 taas ay macnaheedu tahay in hoos u dhac ku yimid kaalinta sanaadna waxaa ku jira taxanii tashkiilaad oo awood la soo laabtay isla xalqadiisii u horeysay waxay keentay 6.18 ee season saddexaad maadaama uu jilaagi sardaar uu tagay oo Muraad Yildirim la keenay oo garanaysid Muraad Yildirim marka Muraad Yildirim maadaama imaaday taxanahana aad baa loo xiiseynayay taxanahana waa taxane isaguna dagaala odayaasha Turkiga taxanahan habeenka TV-ga way iskeenaan baa la dhahay way iskeenaan marka kaalinta lixaad waxaa ku jira Alab Arsalan oo 5.54 tootaalkiisu yahay kaalintoodna waxaa ku jira isla telefishinka ATV markaa way nasatay waa hore 3 bilood oo walaalihii Cusmaan ay maqnaayeen daawasho mayna arag intuu walaaluhu soo laabtay iyo musaladan cusub ay bilaabayso daawasho fiican bay heshay kaalinta toddobaad musalsal baa ugu jira kaalinta afraad musalsal baa ugu jira kaalinta labaadna musalsal baa ugu jira kaalinta sideedna musalsal baa ugu jigo waa biir kujuk gun ishigi oo asagana maalmo dhaw isaguna korkac fiican buu sameeyay laakiin hadda hoos dhac yar baa ku yimid waxay la tahay xalqadaad soo socda isaguna inuu kor soo kici doono kaalinta sagaalaadna waxaa ku jira taxanaha lagu magacaabo cadaalad astaan TV baad ka heli kartiin Soomaali waa jira wuxuu keenay asagana 4.93 sidoo kale kaalinta tobnaad ee u dambeysay waxaa ku jira yasak elma mu aha ubaxi tacaylka wax saas oo ah kulli ma xasuusto af Soomaali ahaantiisa marka tufaax alxaraam adi af Soomaali ahaan hadaan u macnay aniga waa iska cadahay tufaax waa xaraan oo kale ay la dhahaa taxanaha laakiin Soomaalida magac kale u bixiso magacaas ma xasuustiyo taxanaha waa seasonkiisii lixaad xalqadiisii labaad haddaba toosliya ka maxaa ku dhacay maxaa soo ugu wacan daawashadan hoos u dhaca maxaa u keenay runtii taliyaasha xitaa aad bay ugu walwaleen kulli de muuqaalka waan ugu dheeraaday ma fahanteen daawadayaal marka muuqaalada xigan insha Allah tacaala macluumaadada kale musalsalada Turkiga idin soo gudbinayna waan u jeedaa musalsalada Turkiga macluumaadada aad bay u xiiseynaysiin musalsalka walaalaha kaliya kuma koobnaan doono waa mar kale muuqaal cusub micnaha muuqaalka like noo saar يا مقال كلا إنا بالله بيان موذيبي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.